annagu walillahi alhamdu bishii 12 baynu ku jirnaa xilligan oo kale sida taqsiga iyo lagu yaqaano cimilada dayra dhaaf bay ahaan jirtay jaakada iyo koodhar iyo go'yaal baa la xidhnaan jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala roob aan waqtiyadan dhowba la arag 12 baa roobku inoo da'aya 12 baa roobku da'aya waa maalin waagii 60kii mid la mid ah maalin dhowad aad arkayseen cirka oo dhan maalintoo dhan waa da'ay markaasaa dhulkii barwaaqoobay oo ilaahay biyo iyo baad iyo cajaa'ib ilaahay dhigay subxaanahu wa tacaala geeli iyo caanihii iyo lo'di dukaankaad gashaaba caana dheeyaya alla bal habeenkii markaad baxdo dariiqyada caanihii ba saa u tuban weli taariikhda intaan sheekada ku hayo sida ay maanta caana ku tahay mandiqadani kuma noqon weligeed geeli caani ba saa u yaala meel kasta iyagoo moolgaraysan iyagoo jirikaama ku jira baddaa wey maalintii barqadii baa koombada dhayda ah 15,000 oo shilin lagaa siinaya ama 14,000 baad ku helaysa iyadoo la kala siisanaya anaa indhaygaa saaro arkay soo ma jeedid barwaaqada ilaahayna siiye subxaana caafimaadka horumarka ganacsiga guryaha dhismaya caruurta inoo dhalanaysa inta guursanaysa nabadgelyada wax badan ba ilaahay inoo dilaaciyay ilaahay markuu waxayna siiye nicam ah xagay ka yimaadeen ilaahay baa inay siiye wama bikum min ni'matin fa min allah waxaad haysataan nicmo alle xagiisa idinka yimaadeen la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabi la shadiid laakiin dadka inta shukrinaysi waa yaraatay ilaahay nicmadiisii iyo barwaaqadaasaa la haystaa magaalada waxaa la yidhi bandhiga buugaagtaa lagu qabanaya bandhigii buugaagtaa lagu qabanaya tabeelooyin baa la dhejiyey waaweyn arrintaasi waa arrin horumar ah in bandhig dadkii wax qoray ee maskaxdooda tuujiyey ee deegaanka u dhashay in ay soo bandhigaan aqoonta ay hayaan ee ay qoreen oo la dhiirigeliyo dee ayaa lagu qabanayaa baa la yidhi ma aha micnaheedu in bandhigani uu yahay bandhigii ugu horreeyey ee buugta laascaanood lasoo bandhigo mana aha maalintii ugu horreysay ee dadka waddankani degan ay wax qoraan oo soo bandhigaan intaasoo bandhig baa magaalada ka dhacday laakiin kani muxuu kaga duwanaa kii hore wuxuu kaga duwanaa dadka martida ah baa kuwii hore kaga badnaa kan marti badan baa kan ku badnayd dad badan baa loo yeedhay oo hay-adaha qaarkood iyo dowladda iska maamulka iska kaashanayay taasaa marka makhluuq fara badan baa looga yeedhay waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa laakiin buugaag la qoro la soo bandhigay tii u horreysay ma aha intaasoo dhalinyaro wiila leh oo gabdha leh oo dakaatira leh oo culimo leh oo aqoon-yahan leh ayaa soo bandhigay buwaagtooda oo goboladan xiga ku soo bandhigay garoowe oo muqdisho ku soo bandhigay maaha kan kii u horreeyey ee laakiin golihii ka weynaa martigelintii waa ka badnayd arrintii markii aanu maqalnay ka culimo ahaan annagu ciddii mas-uulka hawshan ka ahayd ee qabanqaabinaysay dadka martigelisay baanu la xidhiidhnay si toos ah walilaahi alxamdu mas-uulkii u sarreeyey baan la kulannay waa la hadalnay waxaan nidhi waa arrin wanaagsan bandhigan waa arrin fiican oo horumar deegaanka iyo dadka waa dhiirigelin fiican in la soo bandhigo dadkii maskaxdooda tuujiyey ee wax qoray la soo bandhigo wixii khaldanaana la eego wixii saxnaana la eego aad bay arrintaasi u fiicanta laakiin bikulli ixtiraam wixii macaasi ah waa ka digaynaa waxaa jira laba qodob in la kala qaado u baahan bandhig faneed iyo bandhig buugaageed labay kala yihiin bandhigaasi ha noqdo bandhig lagu soo bandhigayo buugaagta iyo wixii la qoray oo aqoon-yahankii isugu imanayo oo nin walba buuggii uu qoray hadduu keeno ka warbixinayo ciddii wax ka hadlaysa faa'iidayeen wax kale khalad wuxuu leeyahay ka hadasho horumarka iyo aqoonta lagaga hadlo laakiin aanu noqon bandhigaasi bandhig kale inaan lagu ladhin oo ah muusig iyo heeso iyo tumasho iyo raqraqlayn inaan lagu darin magaaladani waxaa ma taqaano waa ka caafimaad qabtaa bandhig faneedyadeedii hore laguma soo bandhigi jirin waxaasoo kale waxaan aad kaaga codsanaynaa arrintaa in laga joojiyo arrintaa codsiga ah baan mas-uulkii u sarreeyey kala kulannay oo kala hadalnay waa soo dhaweeyey waa sax buu yidhi waxoogaa baa ku liqaansan buu sheegay
oo dhaantadu iminka heesaha iyada ka sii xun ma hateenu naqaanay wala siqadii aynu naqaanay maaha waa bahal heesaha hadda ka sii xun oo music leh oo qofku marna dhulka taabanaya marna hawada tagayo oo rag iyo dumarkii isku xidhan yihiin oo la wada dad wax badan oo dayacani ay jiraan qaawanaansha oo sida la isu dhaxboodayo xitaa way ka marqaan culus tahay tan heesaha bayda ka marqaan culus way ka marqaan culus oo dadka waxaan ku shaqaystaa si aanay u raqraqlayn tan kale bay u raqraqlaynayaan arrinta in laga joojiyo oo aan magaalada sunno xun loo bilaabin oo dadkaas magaaladan khayr badan baa lagu ogyahay baan codsi aad u dheer cod dheer ku bixinay kolley in arrintaas aanu jeclayn mas'uulku noo sheegay in martida qaar ay waxa la socdaanna wuu sheegay ka dadaal baan ku niri booliska oo anshaxa iyo adaabta iyo horumarka deegaanka bulshada ka shaqeeya ayaanu arrintii kala hadalnay hadda wax la soo bandhigay ma jiraan ergadu wali ma iman xitaa inay mas'uuliyiintii u sareeyay booliska xil arrinta iska saaraan oo aan magaalada arrintaasi aanay ka dhicin mar labaad baan waxaan ka codsanay mas'uuliyiintii u sareeyay bandhiga buugaagta in kulan ballaaran aan isugu nimaadno subaxii arrintu dhici doonto mas'uulkii u sareeyay wanaga mashquulay mas'uuliyiintii ka hooseeyay runtii rag khiyaara dhamaantood ahaa waa kulannay si fiican baan arrintii isula fahanay magaalada in laga ilaaliyo wixii diinta iyo dhaqanka iyo dadnimada ku xidhan arrintii lama inkirin in meesha ay joogaan fanaaniin baa meesha timi fanaaniintan waxaanan kala garanaynin ma iyagaa meesha iskood isu soo casumay mase waa loo yeedhay fanaan haddii loo yeedho kaalayo hees weeye fadhiyo biskud iyo xalwad cun ma aha dee oo biyo cab waa kaalayo hees haddii loo yeedho waa inuu heesaa ilaa waa shaqadiisii in wax kale ma yaqaan aniga haddii la ii yeedho waa inaan dadka wacdiyaa fanaanka haddii loo yeedho waa inuu heesaa dee ilaa shaqadiisii wey marka haddii in loo yeedhay inay yimaadeen anu ma kala garan karo wallahu aclam barnaamijkii meeshii waa dhacay wallaahi alxamdu bandhigaasi ha suuro galo dad badan oo aqoon-yahanaa meesha isugu yimaadeen laakiin munkar baa meeshii ku lamaana munkarkaasoo ah dhaantada heesaha iyo meesha waxa ka dhacayay ama ha la tunto duhur dabadii ama casran habeen ha la tunto miidiyaha taalla magaaladii khayrka iyo diinta iyo daraawiishta iyo jihaadka iyo oo gaalo laga kiciyo arladan waa hore waxa lagu yaqaanay mise dad saa u boodboodaya meeshii ka soo baxay waxa ayaan darra ah mas'uuliyiintii qaarkood oo ciyaartii la tumanaysa haddana oo kula dhex jirta ummadda u sarsaraysay arrintaasi waxay noqotay arrin yaab leh anigu waan isku dayay meeshii waan tegey inaan ka hadlo oo kelmadda qayb baan ku lahaa markii kelmaddu bilaabatay qur-aankii la akhriyey kelmaddii labaadna la furfuray mas'uuliyiinta gobolka ka hadleen arrintu socoto markii garaadadii hadalkoodu bilowdmay oo aan isla meesha waxba ma yaalin haddaba dhammaatay baan iska soo tago salaada duhuriye ku dhaafi maayna kulley kelmaddii ku dhaaftay salaadii duhuriye ku dhaafina masaajidkan iska soo aadaniyo laakiin miidiyaha marka laga arko waxaa la moodayaa qur-aankii marka la akhriyey maxamed haleyka soo kaco marka la leeyahay inaan qofkii ku xigay ahay baa la moodaya dee manigii qofka ku xiga maan ahayn 6 iyo 5 iyo 7 markay maraysa maan iska soo kacay anigu maan iska soo kacay waqtigii inuu dhacan ka baqay waa iska soo kacay salaada taa micnaheedu waxa weeye waa soo dhawaynaynaa haddaan culimada iyo odayaasha gobolka wixii horumar gobolka oo dhan ah buuggaas iyo bandhigiisa dadka maskaxdooda tuujiye dhiirigelinta waa sax arrintaas waxaanan laakiin marnaba ogolayn maadaama ilaahay ogolayn wixii munkar lagu lamaanay ma ogolin raalina kama nihin cid kasta oo barnaamijkaas munkarka ka qayb qaadatay waxaan ugu baaqaynaa in Allah u toobad keenaan ilaahay inuu soo noqdaan Allah u toobad keenaan subhanahu wa ta'ala oo munkarka Allah looga toobad keeno oo ilaahay subhanahu wa ta'ala looga xishoodo aad iyo aad baan arrinta ugu baaqaynaa munkarka iyo macaasidu dibta ay leeyihiin ilaahay hadii laga caraysiyo ilaahay muxuu yiri falamma asafuna intaqamna minhum markay naga caraysiiyeen waa ka argoosanay ba ilaahay subhanahu wa ta'ala war ma ina ilaahay naga argoostaa doonaysa war ilaaha waxa isugu kaayo qoofaleen nicmo ah hadaynu ka caraysiino war soo ilaahay naga argoosan maayo soo xooluhu dhamaan maayaan soo islaamuhu dhicin maayaan soo roobku yaraan maayo soo colaadi iman mayso
وحلا وحي علاد قبل ككتشري بمرقل أن لقى بختي يا بختي الله إلهي با بختي سبحانه وتعالى صمري بالله ينوفري دشي دمر كافرنتي عصبت الكاتك تو طوان باكو مليس وفي نعمة إلهي سبحانه وتعالى إلهي يعرف فلما آسفونا مركي نقع رئيسيين انتقمنا منهم وكأرقوس النبي عليه سبحانه وتعالى ورإلهي اسكمع لنكرنا الله وتوبت كينو الله وصول نقلنا سبحانه وتعالى دقموينك يدلك وحو كنا وراضي إلهي باقي حي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ضدك دقموينك دقن يا مقالوينك هذا الله كعب صدان سبحانه وتعالى ربي قد كيابان سماذا رزق يدي أبواب تيدان أفرين أبو الله سبحانه وتعالى مركز أمد صفة عون ولا نساء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لكن واد فرينو وإلهي دينتي شريعة بيكتغينو وحي آي سمعيان بإلهي كقبت محا كدن بي أفأمن أهل القرى بلو فيرس آيات كاس أفأمن أهل القرى دادك الدقموينك مغالوينك الدقن مآمن بي كنقدين وفيرسو أن يأتيهم بأسنا بياتا باس كيغا يا عقابك يا عذابك يغو إنو يمادو هبينك يغو هرد إنو ميرو وهم نائمون يغو هرد بأليه سبحانه وتعالى هبينك إنان ميرو ومديو سو جيدو ميديه مeel kasta laga daawanay wax kasta dadku haday sameeyaan inaan miro oo cadaab ku miro miyaanay ka baqin ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun ma aamin bay ka noqdeen ba'siga iyagu inuu u yimaado barqadi iyagu ciyaarayo tumanaya ma aamin bay ka noqdeen ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala wajida afa aminu makra Allah إلهي مكري سما آمن بي كنغدين فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قفكو هديئو أذركتد إلهي انتو النعمي معاسنا وكتشرو والله الدغيا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين بأليه سبحانه وتعالى أنت أسعوبة أنت إلهي إنو قطوبت كأنه سبحانه وتعالى إلهي مخلوقات كيسا إساقا معمولية إن لو عاصي ألا مؤقلا سبحانه وتعالى haddaan soo ururiyo warkayga waxaynu isxusuusinaynaa wax kasta oo musiibo ina ku yimaada ilaahayna kama gardanay inaga isu keenay inaga isugu wacan masaa'ibta hadii musiibo ina ku timaado ilaahay balaayahayna ka haye wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wixii idinku dhacay musiiba idinka gacmiina ku shaqaystay ركعتي لبعض آيات كان يكتب كن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وحي وناك هذا شان إلهي حق يسويدين كيمي وحي كلنا معاصي الله ماذا إذن كليمي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آيات كلا أحد الله سبحانه وتعالى إن قفك كحشوضه وأمدة هذه لك عشون وإذ عقاب مضان كريسا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون زمن نزولك آيات داس بخاري حديث كجابر مركي آيات داس سودك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم alle waa awooda inuu cadaab xagga sare idinka keeno ayaa nabigu istaagay a'uudu biwajhik ilaahay wajigaagan magan galaya ilaahu cadaab xagga sare hanaga keenay soo ma jeedid aw min tahti arjulikum ama xagga hoosin cadaab la idinka keenay xagga hoostoodaba a'uudu biwajhik ilaahu wajigaagan magan galaya hanaga keenay aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din أما إن لا يسكو كين دروغ بدون ميت كين كلا وديلو وقفاشو وإسداو وعدان إسباب إنسان هذه أهون أو أيسر تنا سهلا أما فضود النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس هو حديث صحيح حديث سعد بن أبي وقاص رسول كان لسه عني مقالة المدينة صوغل مساجد بو رسولك ريبني معاوية إليهين بو كبيري والله قالني لما ركعوا سنة أبو تكري أنه نوال والتكني وحوب الله فناجى ربه عز وجل طويلا إلهي بو إن بدن بري سبحانه وتعالى ولا فقي مركي ودعادي مكو دما يستي او رسولك عبار وكجرو صوبخي ايا وحو سألت ربي ثلاثا
rabbigay saddex arrimood baan weydiistay waxaan weydiistay ummadayda biyo iyo daad wadaha fiya oo ay ku rogmadaan ilaahay inaanu ku sallidin faactaaniiha alle waa isiiyo waa ka badbaadiyey ma dhacayso ummadayda oo dhan hal mar in daad rogo oo baabi'iyo alle waxaan weydiistay ummadayda abaar wada camimta inaan ilaahay ku sallidin alla waa iga aqbalay waxaan weydiistay ilaahay inaanu isku dirin ilaahay taa waa iga diiday buu nabigu sallallahu alayhi wasallam haddii marka macaasida iyo dunuubtu ummadii hore waa laga xaaqi jiray adduunka laakiin ummadatan ilaahay waa u naxariistayo iyadaa la isku sallidaya way iskhilaafaysaa way islaynaysaa way isdhaawacaysaa way isqafaalanaysaa dhulkoodii hantooday la kala wareegayaan noloshoodii baa baaba'aysa balaayaa alla u keenaya haddii ay macaasida iyo xumaanta alle ula yimaadaan subxaanahu watacaala rasuulku ilaahay buu ka magan geli jiray fitanka allahuma innii acuudu bika min alfitani maa dahara minha wamaa batan allahuma innii acuudu bika min mudilaati alfitan buu nabigu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh dariiqaynu kaga badbaadayno ilaahay ciqaabkiisa waxa weeye inaynu noqono ummad dareen leh oo wanaaggii faraysa oo xumaantii celinaysa oo diintooda u damqanaysa oo naftooda ilaashanaysa oo wixii macaasi ah oo xumaan ah oo soo kordha ka dhiidhinaysa si xikmad iyo caqli leh uga hortegaysa arrintaasaa ilaahay ku badbaadinaya asxaabu sabti markii ilaahay wuxuu ka xarimay ay dhacday in maxaan ku idhaahdaa dabashadii kalluunka ay ku kaceen qaarna waa la hadleen qaarna waa ka aamuseen falamaa nasuu maa dukiruu bih anjayna aladiina yanhawna cani suu waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iis intii xumaha reebaysana ilaahay waa samata bixiyey intii kale lagama hadlin kuwii kalena ilaahay balaayo ku salliday subxaanahu watacaala markay baladu timaado waxaa la badbaadinayaa dadka wanaagga sheega xumahana celiya ayaa la badbaadinaya